waxa uu qaban jiray hawlaha ay u baahan yihiin reerkiisu, macnaha waxa uu kaalmeyn jiray oo la qaban jiray waxa ay qabanayaan ee hawlaha guriga. Su'aal mudan in la isweydiiyo: sidee loo noqdaa qof wanaagsan? Astaamaha qofka wanaagsan. In aad noqoto qof wanaagsan uma adka sida aad u malaynayso. waxaa jira waxyaabaha aad samayn karto si aad u muujiso naxariis, damqasho, raxmad marka aad la kulmayso maalin kasta dadka kale. Mar walba waxaad u dhaqantaa si naxariis leh. Assalaamu calaykum waraxmatullah. waa salaamantiin saaxiib ee lamaantiin. haddii aad ku cusub tahay kanaalka Rukumo si aad uga mid noqoto asxaabta qiimaha badan ee ku saaxiibnay. astaamaha ugu wanaagsan ee qof yeelan karo sharaftiisana kor u qaadaysa waa inuu noqdaa qof naxariis leh. aadmiga kugu xeeran duruufahooda iyo xaaladahooda ma garanaysid, sidaa awgeed markasta noqo mid lagu soo xoomo naxariistiisa iyo qalbi wanaaggiisa. qalbiga adeeg ee aan lahayn naxariista ma aha astaan xagga Allah subxaanahu wa tacaala ku wanaagsan. qofka qalbiga adag waa laga kala firdhadaa oo looma soo dhowaado, waana inaad ka fogaataa sifaadka khariban. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam ku ammaanay inuu Allah naxariistiisa ugu dabaxsanaaday, oo haddii uu qalbi adkaan lahaa aanay hareerihiisa joogeen ee laga kala yaaci lahaa. waxaana inoo caddaynaysa middaas qofka aan naxariista lahayn agjoogna ma lahan. sifada labaad ee muhiimka ah waa inaad daacad noqotaa. inkastoo waayadan ay dadkii daacaddaha yaraadeen, haddana adigu waa inay noqotaa sifa aad caan ku noqoto. qofka wanaagsan sifooyinkiisa waxaa kaloo ka mid ah inuu cadaalad u sameeyo dadka uu taladooda hayo, sida xaaskiisa, carruurtiisa, shaqaalihiisa iyo shacabkiisaba. si aad u noqoto qof wanaagsan waxay ku xidhan tahay isbeddello ku yimaada noloshaada. isbeddelka waxaa lagu macneeyaa koritaanka iyo horumarka shakhsiga uu qofku noloshiisa ku sameeyo. waxaad iska cafisaa dadka kale, way adag tahay in qof noloshada dhib ku geystay aad iska saamaxdo. hase yeeshee uu cudurdaaridda qof qalad kaa galay waxay keentaa laba faa'iido: in aad hesho beddel khayr qaba kaasoo xagga rabbigaa kaaga ahaaday, iyo inuu qofkii dhib kuu geysto uu kuwaana qaato. waana dariiqa ugu fiican ee uu qofku ku noqon karo qof aad u wanaagsan. waxaad ahaataa qof daacada. wakhtiyadan dambe waxaa aad u adag in la helo qof daacada. sidaas daraaddeed daacadnimadu waa shay uu qofku ku helayo samafal iyo wanaag fara badan, taasoo uu ku gaari karo horumar la taaban karo. waxaad samaysaa shay wanaagsan oo aadan doonayn inaad qabato. samaynta shay aad u wanaagsan oo aadan doonayn inaad qabato waxa ay keeni kartaa in aad gaarto ahaanshaha qof aad u wanaagsan. in aad naftaada ka ilaaliso khatarta, misena aad qabato wax adduun iyo aakhiraba ku wanaagsan, waa wax aad maalin maalmaha ka mid a aad heli doonto magdhowgiisa. waxaad noqotaa qof mar walba hadal wanaagsan. dadku waxay xayawaanka kaga duwan yihiin: waa ay fikiraan, waa ayna hadlaan, wayna is-ixtiraamaan. bulshadii aan is-ixtiraamin, isqadarin waxaa ku badan kara qaskiyo foodo ka dhalata dhexdooda. taasina waxay ku keentaa burbur ku yimaada bulshadii midaysnayd. haddaba si uu u wanaagsanaado xidhiidhkiidinka dhexeeya dadka kale, waxaa habboon in aad wanaajiso asluubta ama hanaanka hadalka. wanaaji hadalkaaga. haddii aad dadka sheeko la gashid dhegayso oo ahmiyad sii qofka kula hadlaya. ka bixi jawaabaha ku habboon mawduuca uu qofkaasi kaala hadlayo. ha caayin dadka iyo afkaarahooda. hana badin hadalkaaga. haddii aad dadka ku weerarto hadallo adag, waa ay kaa xumaanayaan dadku. dibci hadalkaaga, iskana ilaali hadallada deelqaafka iyo eryada aan habboonayn. waxba ha ka sheegin qofka naftiisa. haddii aad wax ka sheegto isaguna waxbuu kaa sheegayaa. halkaasna waxaa ka iman kara ismaandhaaf sababa isfaham la'aan iyo isku dhac. ku dadaal inaad qofka ku tiraahdo raalli ahow marba haddii aad aragto inuu qofku ku dhibsaday. waxa aad ka aamustaa qofka haddii uu idin dhex maro muran, maxaa yeelay muranku sidiisa ma wanaagsana oo waxa uu keenaa oo keliya isku dhac. run ahaantii haddii aad samayso intan iyo ka badan, waxaa hubaala inaad noqoto qof wanaagsan. waxa ay leedahay dabeecadda wanaagsan xagga islaamka faa'iidooyin fara badan. allah waxa uu abuuray subxaanahu wa tacaala dadka oo leh muuqaalo iyo midabyo afaf kala duwan. waxa uuna allah ka yeelay xagga miisaanka ilaahay kuwa agtiisa ka siman, qofna qof uuna waxba dheerayn, marka laga reebo iimaankiisa iyo alla ka cabsigiisa iyo toosnaantiisa. allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku leeyahay qur'aankiisa: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. dadow hubaal waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig oo idinka dhignay shucuub iyo qabaa'il si aad isku aqoonsataan. hubaalkan idinku sharafta badan Allah agtiisa waa kan idinku alla ka cabsiga badan. Allahna subxaanahu wa ta'aala waa mid xoogaal u ah waxa aad samaynaysaan. dabeecadda wanaagsan dhammaan dhinacyada nolosha. islaamku wuxuu aad noogu adkeeyay ahmiyadda dabeecadda wanaagsan xagga qoyska in ay ku wada dhaqmaan dhammaan inta qof ay ka kooban yihiin. rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu dhahay waxa idinku wanaagsan midka idinku wanaagsan ehelkiisa, aniguna waxaan ahay midka idinku wanaagsan ehelkayga. nabigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ahaa midka dadka ugu wanaagsan. waxa uu qaban jiray howlaha guriga oo ku kaalmeyn jiray reerkiisa wax kasta ha yaraadaan ama ha weynaadaan, sida ay warinaysa xaaskiisa Caaisha radiyallahu anha. waxa uu qaban jiray howlaha ay u baahan yihiin reerkiisu, macnaha waxa uu kaalmeyn jiray oo la qaban jiray waxa ay qabanayaan ee howlaha guriga. su'aal mudan in la isweydiiyo, sidee loo noqdaa qof wanaagsan? astaamaha qofka wanaagsan. in aad noqoto qof wanaagsan uma adka sida aad u malaynayso. waxaa jira waxyaabo aad samayn karto si aad u muujiso naxariis, damqasho, raxmad marka aad la kulmayso maalin kasta dadka kale. mar walba waxaad u dhaqantaa si naxariis leh. inaad noqoto qof wanaagsan waxay la micno tahay inaad u dhaqanto si naxariis leh. cilmi baaristuna waxa ay soo jeedinaysaa in ay naxariistu si wanaagsan u saamayso maskaxda qofka bini'aadamka. naftaada u wanaagsanow. sida aynu ula dhaqanno nafteena oo ay ku jirto isla hadalkeenna ayaa door muhiima ka ciyaara sida aynu ula dhaqanno dadka kale. u fiirso sida aad ula hadasho naftaada iyo sida aad uga falceliso marka ay wax khaldamaan. ma eedaysaa ama ma ciqaabtaa naftaada, ma isugu yeertaa magacyo kale. waxaa hubaala haddii aad ka shaqayso dulqaadka iyo wanaagga naftaada markaa inay sahal kuu noqonayso wax kastoo wanaagsani. mar walba waxaad noqotaa qof maskax furan. nolosha waxaa ka buuxa isbeddelo badan. waxaan la kulannaa fikrado, xaalado ama dad aan aqoon oo nagu cusub. waxaa iman karta shucuur xun taasoo adkaynaysa inaan wanaagsanaano. maskax furnaantaadu waa furaha barashada iyo dhuuxidda macluumaadka iyadoo aan la xukumin. sidaas daraaddeed noqo qof maskax furan. qeexidda astaamaha qofka wanaagsan. maxay ka dhigan tahay inaad wanaagsan tahay? waa maxay dabeecadda wanaagsani? sideed ku ogaan kartaa inaad tahay qof wanaagsan? qaar ka mid ah sifooyinka inta badan lagu daro qeexitaanada qofka wanaagsan: akhlaaqda wanaagsan, u damqashada dadka kale, cadaalad falista, deeqsinimada, waxtarka, dabeecadda wanaagsan, naxariista badan, anshax iyo edebta, mas-uuliyadda iyo fikirka wanaagsan. faa'iidooyinka laga helo wanaagsanaanta. sideedaba qofka wanaagsan waa mid ka fikira feeqabka badbaadada iyo dareenka dadka kale. si kale haddii loo dhigo, dhaqamo badan oo wanaagsan sida waxwadaagga, wada shaqaynta iyo nasteexada, kuwaas ayaa ah ficilada bulshada ee kor u qaadaya daryeelka dadka kale. si kastaba ha ahaatee, cilmi baaristu waxa ay soo jeedinaysaa in u ficilnaanta dadka kale in ay faa'iido leedahay caafimaadka maskaxdaada. soo jiidashada. in aad noqoto qof wanaagsani waxay kaa dhigi kartaa mid soo jiidasho leh marka la eego dhaqanka nolosha bulshada. niyadda wanaagsan. cilmi baaristu waxay soo jeedinaysaa in ay kaa caawin karaan hagaajinta niyaddaada. mid ka mid ah daraasadahan cilmi baaristayaashu waxay ogaadeen in ku lug yeelashada howlaha naxariista muddo 7 maalmooda ay kordhiso dareenka farxadda iyo fayoobaantaada. walwalka oo yaraada. wanaagga waxaa kaloo laga yaabaa inuu door muhiima ka qaato dhimista walaaca. daraasadu waxa ay soo jeedinayaan in qofku wanaagga uu sameeyo ay ka caawin karto dhimista walaaca iyo warwarka mar walba haysta. waxaa jira siyaabo badan oo aad ugu biirin karto wanaagga nolol maalmeedkaaga. waxaana hubaal ah in wax walba bilowga ay adag tahay, laakiinse haddii aad u samirto waxaad gaari doontaa faa'iidooyin fara badan. dadka wanaagsan waxay leeyihiin shakhsiyad heer sare ah taasoo dadka oo dhan ay dareemaan. mararka qaar waxaynu eegaynaa qof aad u dabeecad wanaagsan, kadibna waxaan is odhanaynaa qofkaas oo kale ma noqon karaa. waxaad noqotaa qof madax bannaan. dadka dabeecadaha wanaagsan si fudud looguma yeesho galaangal dhanka maskaxda ah, balse si wanaagsan ay dadka kale u dhageystaan. balse waa kuwa si madax bannaan u fakara, go'aamadooduna u gaar yihiin. si fudud laguma bedeli karo, dadkana laguma dari karo. dhegaystaha qiimaha badanow, intaas ayaan ku soo afmeerinaa muuqaalkeenna. haddii aad waxun ka faa'iiday, muuqaalka leegta saar una sii gudba asxaabtaada si aan u helno saaxiib wanaagsan sida adiga oo kale. haddii aad nagu cusub tahayna channelka rukumo si aad uga mid noqoto asxaabta aan halka ku bahownay.